Ruben Amorim oo banaanka keenay hal wax oo u suuragelisay inay garaacaan Athletic Bilbao. Tababaraha Manchester United Ruben Amorim ayaa warbaahinta la hadlay kadib guushii 3-0 ahayd ee ka gaareen Athletic Bilbao oo lugtii hore ee semifinalka Europa League oo ka dhacay San Mamés. Tababaraha ayaa yiri, natiijadu waa mid aad u fiican, laakiin waa inaan fahanaa sidoo kale inuu harsan yahay kulan kale. Waxaan dhibaato badan la kulanay bilowgii ciyaarta. Kaarka cas ee ciyaaryahanka Bilbao ayaa ciyaarta jihadeeda bedelay. Wuxuu sii raaciyay, ciyaar kasta waxaa bedeli kara hal dhacdo. Waxaan haysanay fursad aan gool kale ku dhalin karnay. Wax walba ma dhammaan. Waxayna samayn karaan isla sidaas marka aan Old Trafford tagno. Wuxuu carabka ku adkeeyay, way xoog badan yihiin aad bayna u dhiiran yihiin. Waa inaan diyaar u noqonaa. Manuel Ugarte oo khibrad badan leh wuxuu ahaa mid xoogaa cabsida la daala dhacaya. Patrick Dorgu sidoo kale wuu kacsanaa. Ciyaartoyda sida Casemiro, Harry Maguire iyo Bruno Fernandes aad bay u caawiyeen kooxda. Markii laga hadlayay Harry Maguire wuxuu yiri, mararka qaar xaaladan waxay nagu dhacdaa waqtiyo adag. Harry wuu soo maray waqtiyo adag. Wax walba oo uu sameeyo waa wax faa'iido u leh kooxda. Marka waa inaan ku raaxaysanaa. Marka laga hadlayo lugta labaad wuxuu yiri, dabcan anaga fursad fiican haysana. Waxaan haysanaa taageerayaasheena, laakiin wax walba way isbedeli karaan mar kale. Hal ciyaar wax kasta waa dhici karaan. Ugu dambeyn wuxuu yiri, waa inaan aad ugu taxadarnaa ciyaartooydeena markaan wajahayno Brentford. Nasser Mazraoui waa la bedelay. Patrick Dorgu wuu daalay. Waa inaan si wanaagsan u maamulnaa ciyaartooyda. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee aan ugu hadlayay guushii Manchester United ee ay ka gaartay Athletic Bilbao tartanka UEFA Europa League. haddii aad ila dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay ha ilaawin inaad muuqaalka la saarto, sidoo kalena aad sii share gareyso. haddii aad nagu cusubtana nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. mahadsanid.